afartii sanadood ee ugu dambeysay ay dhaahdo ilaa marka laga bilaabo sanadkii 20 bidii ugu dambeeyay ilaa iyo imika ay tahay 23 waxaan u soo noqonaynaa wuxuun baa yahay wax qabad iyo inaan horumarino degmadan iyo degmooyinka kale ee xeebta Soomaaliland ku yaala min Saylac ilaa iyo Laasqoray oo hawlo badan iyo effort badan aanu gelinay oo dhammaan intooda badan dhammaan inta xeebta ah ee stationada xarumaha kalluunka ah ay yaalaan qalabkii looga baahnaa lagu kalluumaysanayay ama kalluunka lagu qaboojinayay ama ha noqdeen mashiinadii barafka dharinayay ama kuwii qaboojinayay ama wixii kale looga baahnaa oo dhan shaqaalii ka shaqaynayay intaasba way shaqeeyaan meelo faylgaroobay oo qalabkii aanu dhignay aanay ku shaqaynin way jiraan laakiin meelo badan baa shaqeeyay xarumo cusub aanu samaynay baa jirto oo Saylac iyo Lughaye iyo dhul badan ah iyo qalab cusub aanu ku kordhinay inkastoo dadkeenu aanu active ku ahayn ama ku dadaal badnayn xagga badda haddana wixii loo helayay iyo wixii loo haaban karayayba ama qasdada dawladda laga bixiyo ama hay'adaha loogu daro mashaariicda ay naga maalgelinayaan waa ku dadaalay dadaalka aanu qabanay 40 sanadood ugu dambeeyay inta aan wasiirka kalluunka ahaa waxa ugu weyn dekedan ama jadkan kalluumaysiga ee imika ayna horteena ka muuqata dekada waxa la hadalay muddo dheer runtiina dawladdu walo timaadaba waxa la oran jiray samee laakiin hadalhaynteedu wuxuu ahaa 10 sanadood kama yareen wuxuu baynoo fushay sanadahan ugu dambeeyay aynu dhagax dhignay sanadkii 2020 muddo 2 sanadood ku dhowna way soconaysay 2 sanadood ka bacdina iyadoo sidii qaabkii loogu talagalay bay ku dhamaatay aad baa waxaan u xusayaa maadaama wasaaradii kalluunka imika laga wareejiyay تعبكي لو قالay ninba intuu ku lahaa uu calaamadsan yahay laakiin madaxweynahan doonaya inaan uga mahadnaqo 2020kii waa ka covidkii nagu dhacay marka lacagtii 5 milyan ahayd ee loogu tala galay in lagu dhiso dekedan 700,000 baa gaabtay 700,000 waxa deeqda qaybta qoradan qaadan bixiyaasha Ingiriiska ayay ahayd Ingiriisku wuxuu covid waxba dhacayo lacagta ma hayno wasaaradda qorsheynta ayaa igu wargelisay inay lacagtaas u gaabatay lacagta hadhaya kalena aanay dekadii dhisayn dabeedna la gelinayo mashaariic kale lacagta inta hadhay dhowr goor horena way ku dhacday dekada sidaas dabeedna qolada qorsheynta waxaan ku yiri bal aynu meelo kale wax uga doono laakiin lacagtaas naga noqon mayso dekadaan ku dhisaynaa waxa Ilaahay sahlayna madaxweynaha ula taga arinta oo aan raahdo dekadii waxay u fadhidaa $700,000 oo qaarankii Ingiriiska ahaa dabadna safiirkii Ingiriiska ee Nairobi joogay markii madaxweynuhu la hadlay wuxuu u sheegay inaanay ka maarmayn dekada ee lacagta meel laga keenaba ay bixiso qaaranka qaybteeda dawladda Ingiriiska safiirkina wuu aqbalay muddo kooban baan lacagtaas ku timi sidaas uu mashruucaas galay marka libta inteeda badan waxaan siinay madaxweynaha sababtoo ah daanu war ugu qeylo doon tagay asaga fuliyaha hawsha ka bacdi intii ay socotayna dadaalkeeda ilahayd maalin walba waa imanayno waa eegayno wixii ka dhiman iyo qaabkay u socoto tacab badan baa galay idinkuna waa la socoteen Soomaalidu kolba waxay hayso way ilowdaa laakiin waxaan hayn bay haabataa dekadaas imika gacanteena ku jirtaa waa dekad shaqaynaysa already xoolii baa ka dhoofiseen haba yaraatay waxba ka soo dejiseen waxa loogu talagalay kalluunka laftiisa inaan qalabkan aan imika keenay iyo wixii hore haysateenba baddaas ay Ilaahay idin siiyay ummadu bad ma wada haysato in yarba Soomaaliland badda haysata deena ka faa'iideysataan kalluunkana kana dhoofisaan idinkuna ka dharagtaan oo gobolkiina sanagde horta aafataysaan oo aan gobol kale waxba idin keenin
kalluun ku suntan in maalinkan maanta amaydin laga soo saaray in dalka lagu cunaa loo baahan yahay dadaalkaas dadku ku xidhan yihiin dadka deegaanka ee had iyo goor wax qabadka ka hadla ayaa loo baahan yahay wixii hore loo qabtay horta inay ku shaqaystaan oo aanay dayacin oo aanay halka ku lumin say u taagan yihiin taa waan idin kula dardaarmayaa waxaan kula dardaarmayaa dadka Sanaag u dhashay guud ahaan gaar ahaan magaalada Ceergaabo ee caasimadda gobolka ah in baac mushtarigeeda iyo waxgaradkeedu iska kaashadaan sidii dekadaas u shaqayn lahayd ee aanay boosaasana tagin meel kalena tagin ee dekadooda ku shaqaystaan wadaduna waa khasab inay dhisanto imakana waa bilow waa ogtiin intaasaan qoladana kula dardaarmayaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maanta halkan waxay keenay waxa weeyaan qalabkii aan ku talagalnay inay doonyaha dekedan ku shaqaysan doona ama ku soo xiran doona ama wax ka dhoofin doona ama wixii dadku cuni lahaa u keeni lahaa qalabkii oo mutakaamil ah in la keenay qalabkaasuna muddo la ila sugayay inaan wareejiyo ama furo xafladda lagu wareejinayo taasuna ay ku soo beegantay waqti kala guura marka khasab ay ugu noqotay intaan xilka wareejin inaan dhameeyo hawshii aan gacanta ku hayay aan qabiyo kaga tagin waan jeclaa wasiirkii cusbaa oo nin reer Sanaaga oo taqaanaan oo Raabi la yiraahdo inuu soo raaco waana u bandhigay laakiin uu ka cudur daarto hawlo kale u lahaa waa sayidin iman doona marka ama halkan ha noqoto ama Ceergaabo iyo sarbadii aanu ka dhisnay qalabkeedii ha noqoto ama ha noqoto xiiso ayadana qayb ka ah qalabkan aanu qaybinayno intaaba inaan goobjoog ka noqdo sidii wax loo qaybiyay ama wax u dhamaadeen ayaan hadda u socday qalabka halkan lagu bixiyay waa qalab qiimihiisu uu badan yahay marka la isku daro marka lagu daro halkii saribadii kalluunka aanu shalay furay oo ah saribadii ugu horeysay kalluun ay yeelato magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo waxa qiimuhu noqonaya qalabka iyo qalabkan aanu qaybinayno kalluunka marka la isku daro ee mishiinadu u bow dheer yihiin lacag $500,000 bay noqonaysaa qiimo yar ma aha qiimo la dayacana ma aha waxaan u sheegaynaa dadka ay gacantiisa galeen qalabkaas inay xukuumaddu ku daba joogayso siday ugu shaqeeyeen ninka dooni mishiin loo saaray ee loogu talagalay inuu ku kalluumaysto naftiisa ku anfaco dadkiya dalkaba ku anfaco shaqaale ku abuuro iyo shaqaabuur ku sameeyo ee mishiinka intuu meel kala geeyo ama meel iska dhigta ama iibiya waa la xidhayaa wasiirkana waan ku ballaminayaa marka xilka wareejinayo واحد منكم كمسؤول أنا وكان نول بوا اللي قد بقليا حولها سوا حول قرن وضد كوضة دحية وأنا قلت لك الله إني لو انتفاع صدق انتفاع أنا ضد كلاسية يوصل سعران معني ما هاي دولة وحكي دولة يسو ضد كلام وحسكسية اللي هي يدوكوا يسكوا أنفع شغالنا كو أنفع وحاسوين يدا يعمل دوني دنبوحنا ملها فردو قرفوفي أنا نعرف دوني على هيدان وأنا قفردي أنا دي أقول كعبة شرتين ميدو والله مركب مشين كلا سريو شغالنا الله أبورو بدنا حق شو وحي لوجو تلاقى علينا وديه مشيندو دنيا لسارة يلا كعينا يا واصدن وأكتهين سجالية طبعا ومايد كوبية طبعا وحيس قلب ككلا وقلب كلهم يسوي يسكتنا وقلب عصري وشباب تادون تكمل تهاي عصري وقبل هنا بكلهم يستو أيقون هو صدن قلب صدن دنيا ده ويه وحكلوا يدين ديارة برفدريه oo awood leh oo shaqeynaya waxa idin diyaara maxaan ku dhahdaayay qaboojiyaashii wax walo kalluunka u baahnaba way idin diyaar marka waxa weeye hawl yari badda u gal qalabka lagu siiyay dooyaha iyo qalabka kalluunka ku soo kalluumayso halkan xeebtana waxa kugu diyaara ama xarunta kalluumaysiga waxa kugu diyaara wixii qalab ahaa ama looga baahnaa kalluun in lagu qaboojiyo ama lagu process gareeyo dhan baa kugu diyaara kalluunka xumaanaya ma jiro waxa
lagu tababaray qalabkan iyo kalluumaysiga oo ay dhaqaale la geliyay oo muddo wasaaradda iyo ay ku soo noqonayeen SDF ba oo naga caawinaysa hawsha 320 qof oo kamida dadka iskaashatooyinka ku shaqaysan doona xirfadan waxa la tababaray oo kale dadkii ayagu aan doonayaysan tuuranayay witirkooda ama lugtooda ku soo kalluumaysanayay ayaa tababar ku filan la siiyay qalabkii ku kalluumaysanayeen ayagana la siiyay waxa ilaa xad la tababaray shabaagta ama qalabka dayactirkiisa dadkii samayn lahaa dib u tulteli lahaa marka wax ka go'aan oo ilaa 30 dumar ah waxa la yiraahdo wixii tuulis ah ama qalab ah kalluumaysi looga baahnaa ayaa idin diyaar ah oo la idinku wareejiyay waxa la idinka baahan yahay inaad ka faa'iideysataan oo qalabkaas halka ku daxalaysan oo ku burburin oo badda ku cunin oo daxalku ku cunin ayaa la idinka doonayaa wasaaradda mas'uuliyiinta cusub ee ku wareejinayna waxaan hadii alla yiraahdo ku dardaari doonaa inay idinkaga warhayaan raggii wasaaradda ka shaqaynayay wasiirku baa la bedelay way joogaan ayaguna xaalkiina way ka warhayaan marka taasuna waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaya waxa weeye bini'aadamku horumarka asaga samaysta qof deelma caruurta iyo caruurta la inooga baahan yahay inta qaan gaarayaan ama talaabsanayaan in malqacada wax lagu siiyo ama afka wax loogu guro laakiin dadka waaweyn waxa looga baahan yahay inuu dadaal sameeyo اعملوا فسير الله عملكم في الدنيا والآخرة وي عملكينا الدنيا عملكينا آخرة بسميست ده يا oo de laydin ma oran iska noolaada oo sidan aynu badanay waqtiga qaaliya cimrigeenu jecel wuxuu inaga dhamaadaa hadrad hadii ninku 2 saacadood ama 3 saacadood ama 4 saacadood maalintii shaqaysto baahi qaban mayso laakiin inaka dhaqankeena waa taqaanaan waa maxaa la yiri maxaa la lahaa hurdo gidaar fadhi kursi meel ku fadhi weey qofku habeenkii markuu seexdo ku tala galo aroorta maxaad qabanaysaa shaqo maxaad soo qabsanaysaa qorshihiisa u diyaar ahaadeen laakiin qofku subaxii habeenkiina yaanu iska seexanin subaxiina barqada ku gaadhin dabeetana hatar ka shaqeynay waa waxaan horumar la gaadhi weyne waxaan maleynayno timcada aha cimrigeena yaanaan ku dhumin ayda suuqyada waxaanu ka shaqeynaa inagu waxa soo baar yar waliba oo helay oo imaka ayno wax ku qorqorayno waxna ku hadlayno wuxuu shubayno muxuu hebel yiri maxay heblaaya tiraa taasuna waa dardaaran aan siinayo waxaan idinkaga tagayaa oo idin la jecelahay guul gobolka kama tagin shaqadeedu way ka socotaa dekedan waxa ku tartami doona annaka iyo qolada kalluunka annaka inaan xoolaha ka dhoofinaan annaka hadii inaan xoolaha ka dhoofinaa dhakhtarkii caafimaadka ee dekada xoolaha ka dhoofinaya dhaqaatiirtii way joogaan wixii xoolo dhoofinta looga baahnaa waa sameeynaa kalluun buu ku magacaabay marka hore kalluunkiina wayna ka shaqeeyaa hadii alla yiraahdo halka laga tagin oo taab khasaar noqon inta waxaan ku dareeyaa waxa weeye اللهم صل على سيدنا محمد markay tahay dekada iyo shaqadeeda quruun waliba meeshay degantay iyada soo marisa ayadana deegaankeeda u tacabta waxa uga baahantiin dawladda waa helaysaan laakiin idinku afkiina yaanu idin ceelin dadka deegaanka Ceergaabo u dhashay anigu waan oge waa geed sarawaab deegaamo kale camiraan qaar ragaysi camireen qaar burcay camireen qaar boosasay camireen qaarna meelo jaano kale marka waxa idin leeyahay wartana ilaahay idin siiyo badda inta lagna waa haysataan dhulkii ugu qanisanaa ee ilaahay nagu abuuray ee reer Soomaaliland dhan ka soo farcamayna waa joogtaan dadkiina wariba intay maqlaysan maaha halkan hor fadhida maaha intay maqlaysaan hadalka ula sii jeedaan ee ama tujaara ama wax garada ama wax baratay ama hadii goor horumar ka fakirta gobolkan waa gobolkii ugu qanisanaa ee Soomaaliland lahayd waa gobol ku filan Soomaaliland dhammaanad isku timaadeen nimcadiisa oo dahabkii dusha yaalo oo batroolkii ku jiro oo badii ugu ballaadhnayd leh oo xoolihii ugu wanaagsanaa leh oo buurihii leh oo banaanadii leh haduu yahay waashmaanayna ka noqono oo aynu dul joogno uun sidii uu yaashan yeeli jireen oo kolba halkaas oo isku rifno leeyahay kolba mid baa mid geeliyo waxba isku soo foofo waa la dilay taasu xikmad ma noqonayso
dadku waa inay degaan waa inay caqli yeeshaan waa inay ka jeestaan ficil qabiil iyo qolo iyo macno la'aan waa inay u jeestaan waxqabad iyo horumar reer Sanaagna inta kula dardaarmaya